assalaamu calaykum. Maalinta ku bilaabmatay ma tahay maalin aad guul gaari kartid ama aad qorshe leedahay? Maalin kasta sida ay noqonayso waxaa go'aamiya subaxii sida uu kugu bilaabmo. Waxa muhiim ah in laga taxadaro waa inay ku bilaabato maalin aanad garanayn bilowgeeda iyo dhammaadkeeda. Dabcan wax waliba Allihii ina uumay ayaa og, laakiin taas macnaheedu ma aha inaad u noolaato sida xoolaha. Caadooyinka dadka guulaystay waxaa lafdhabar u ahaa maareynta bilowga maalintooda. Haddaba waxaa ka mid ah caadooyinka wanaagsan ee ay sameeyeen dadka guulaystay. Waxa ay seexaan waqti hore si ay u toosaan. Waqti hore oo aad seexato waxay jidhkaaga siinaysaa nasasho dhammaystiran. Sidoo kale waxay xoojinaysaa awooddaada maskaxeed iyo jidheed. Ka taxadir soo jeedka habeenkii ama saamaleelka, kaas oo dhibaato weyn ku keeni kara jidhkaaga. Diinteena Islaamka ayaa ina faraysa inaad waqti hore toostaa. Waa waajib maadaama aynu oogayno salaada subax. Salaada subax waxay ka mid tahay waqtiyada ugu dhow ee ducada Ilaahay aqbalo. Waxa ay sameeyaan jimicsi. Jimicsiga subaxii wuxuu kala shaandheeyaa habdhiska wareegga dhiigga, waxaana toosiyaa wadnaha iyo muruqyada. Sidoo kale waxa uu dejiyaa xaaladda nafsiyadeed. Dabcan hawada saafiga ah ee subaxii wax loo dhigaa ma jiraan. Wax badan ayay akhriyaan, wax badan bay ogaadaan, wax badanna waa ay helaan. Run ahaantii wax badan haddii aad akhrido waxaad heli doontaa wax badanna waad ogaan doontaa. Qofkana marka la qiimeynayo waxa lagu qiimeeyaa imise buug ayuu akhriyay, imise xogood ayuu hayaa. Isla mar ahaantaasina 5 sannadood soo socda meeshaad joogi doonto, guushaad gaari doonto iyo heerka aad nolosha ka gaari doontaba waxaa go'aaminaya inta buug aad akhriday amba inta xogood ee aad akhriday ee aad hayso. Waxa ay cabbaan sharaabka liin macaanta. Haddii aad toosto adiga oo warwarsan ama xaaladaada nafsiyadeed aanay deganayn, waxaa habboon inaad cabto liin macaanta. Liin macaantu waxay ka kooban tahay maadada fitamiin B6 iyo aashitada acid folic, kuwaas oo dawo ka ah warwarka dejiyana xaaladda nafsiyadeed ee jidhka. Waxay u seexdaan dhinaca midig. Iska ilaali inaad u seexato dhinaca bidix maadaama ay sababto wadne xanuun, cadaadisna ku samayso sambabada iyo caloosha. Cilmi baadhayaal badan ayaa sheegay in dadka u seexda dhinaca midigta ah ay ku raaxaystaan hurdo nabadgelyo ah. Waxay dejiyaan qorshe maalineed ee ay ku hawlgalayaan. Waa qodob muhiim ah. Ugu dambeyn waa inaad samaysataa qorshe aad ku maareyn lahayd maalinta cusub ee ku bilaabantay. Waxaana ugu muhiimsan maareynta waqtiga. Qiimaha 5 daqiiqo ay leedahay oo aad garataa waa furaha guusha nolosha iyo aakhiraba. Wassalaamu calaykum.